السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كسو دوادا جانل كيغا مركالة وأبشر وإذين صدوبايو موقال كان مانتا موقال كان إذين وضوا موقال آد وحيسا بدن مانتا وحان ربا إنان إذين كلا حطلو محالة جيمكا كهر أما إنت آدن جيمكا آدين محالة عنتوين كلا وعنتوين كي آيان إذين كلا حطلو أوكي محاد سوغيسان أصحابتا أنا قد قلنا موقال كان Okay, horta waxa loo yaqaano pre-workout ama cuntada la cuno gymka ka hor inta aanan gelin waxaan ka hadlayaa maxay qabataa horta cuntada maxay tartaa cuntada gymka ka hor la cuno waxay ku qabanaysaa laba shaqo oo aad muhiim u ah haddii aad doonaysid inaad dhistid murqo shayga ugu horeysa ay ku qaban doonto waxaa waaye cuntada pre-workout-ka ama gymka ka hor la cuno waxay ka caawin doontaa in ay energy ku siiso ama tamar ku siiso markii aad workout ka sameynaysid ama inaad wax qabad fiican sameysid ka caawin doontaa yacni waxay ka caawin doontaa waxa la yiraahdo depletion ama glycogen depletion waxaa la dhahaa waa energy uu kaydinayo jirkeena taas oo la isticmaali doono markii aad workout ka sameynaysid haddaba pre-workout mealkaaga haddii ay tahay mid saxneed waxay ka caawinaysaa in kaydka kala glycogenkaagu uu buuxsanaado taas oo macnaheedu yahay workout-ka ama jimicsiga markii aad sameynaysid waxaad yeelan doontaa tamar okay shayga labaad ee ka caawin doonto pre-workout mealka waxaa waaye inay ka ilaaliso jirkaagu inuu murqahaaga tamar ahaan u isticmaalo murqa inaad dhistaa rabtaa ka waran haddii uu jirkaagii isla murqahaaga hore uu isticmaalayo hore u socod ma imaanayo markaas waxaad noqonaysaa kor aad hoos aad marka pre-workout-ka iyo post-workout mealka labadaba waa labada cunto ugu muhiimsan ay quraacdu soo raacdo saddexdaas ayaa ugu muhiimsan asaas ahaan jirdhiska saddexda cunto ugu muhiimsan waa kuwa marka pre-workout-ku waxay ka caawinaysaa ama ay ka ilaalinaysaa jirkaaga in uu isticmaalo muruqii hore oo waxay siinaysaa protein hadda ah iyo energy uu u baahan yahay oo cuntadii aad cuntay ka imaanaya oo murqahaagii hore uusan kaa taabanin waa ila fahanteena u malaynaya okay taas waan isla garanay shaqooyinkay qabanayso waa shaqooyin aad muhiim u ah haddaba maxaa la cunaa horta markii aad gymka aadaysid ama pre-workout mealkaaga waa inuu laba shay ka koobnaadaa carbohydrate iyo protein labadaas waa inay ka koobnaataa cuntadaada marka waxaa jiro cuntooyin la cuni karo 1 saac gymka ka hor ilaa 2 saac gymka ka hor sidoo kale waxaa jiro markii aad degdegsan tahay ama aad soo daahday aad cunto ka gaarin oo daqiiqada yar aad haysato waxaad cuni karto labadaba waan idiin sheegayaa aan ku hormaro cuntooyinka 1 saac iyo 2 saac ka hor gymka la cuno waxaa la cunaa slow digesting carbs waxa loo yaqaano carbohydrate-ka jirka oo dheefshiidka uu tartiib u shiido maxaa kamid ah bariiska kamid ah oatmeal-ka kamid ah waxaa kamid ah rootiga brown-ka ah kamid ah baastada kamid ah oo naturalka ah iyo protein sida chickenka fishka hilibka ukunta kuwaasa kamid ah marka kuwaas waxaa la cunaa 1 saac ilaa 2 saac gymka ka hor hadda aniga 1 saac kadib ayaan gymka aadi rabaa cuntadeyda waa tana aan idin tuso waxaan meeshan ku haystaa chicken iyo rice iyo qudaar chickenka waa protein wuxuu naga caawin doonaa ama iga caawin doonaa inuu jirkeyga ka ilaaliyo yani murqihii hore inuu energy ahaan u isticmaalo carbohydrate-kana waxay iga caawin doonaan glycogen storage-ka yani energy-gii inuu iga dhamaado markii aan workout ka sameynayo iga caawin doonaa aniga 1 saac bar ka dambo aan gymka aadi rabaa hadda cuntadan ayaan pre-workout u cun rabaa markii aan videogan idin dhameeyo kadib marka waxyaabo badanaa jiraan waxaa cuni kartaa tusaale eggs and oatmeal aa cuni kartaa oo kale ama waxaa cuni kartaa tusaale rootiga brown-ka ah iyo chicken rootiga brown-ka ah iyo malay aa cuni kartaa haddaba pre-workout-ka ama cuntada gymka ka hor ha cunin fats waayo fatisku markii loo fiiriyo saddexda nafaqeeye kale nafaqeeyaasha waxaa la isku yiraahdaa carbohydrate protein iyo fats waxaa loo yaqaanaa macronutrients
ayaga midka jirka uu tartiib u burburiyo waa faatka, laakiin kuwan ayuu dhaqsi jirka u burburinaya, u dheefshiidka marsiinaya carbohydrate iyo protein. marka fats uma baahnin markii aad pre-workout cunaysid. okay, hadda maadaama aan isla fahnay cuntooyinka la cuno 1 ilaa 2 saacadood ka hor, haddaba kasoo qaad maanta guriga ma aanan joogin, waa imaaday daqiiqada ayaa iga harsan waqtigaan gymka aadi lahaa, cuntadan ma cuni kari, gymka ma ku tegi kartid. weli ma aragta qof gym kuma tagaaya waa arka aniga dhowr jeer. waxaa keenayo cuntadii waqtigu soo cunay iyo xilligu gymka imaaday aan islahayn, halisna waayo, waxaa laga yaabaa xitaa caloosha inay dhaawac kaa gaarsiiso. marka haddii aad daqiiqada yar haysatid 30 minutes iyo wixii ka yar oo haddana aad rabtid inaad gymka tagto, waxaad cunaysaa cuntooyinka fudud. maxaa kamid ah markaasoo kale waxaa perfect sense sameynayo ama aada muhiim ah 1 scoop oo protein ah iyo xabad moos ah oo kale. xabad mooska waxaa waaye waa simple carbohydrate jirkaaga isla markaa ayuu isticmaali doonaa glycogen storage-kii, yani energy ahaan uu isticmaali doonaa. proteinkana sidoo kale waa liquid, jirkaaga hore ayuu ka isticmaali doonaa. okay, waxaa kaloo isticmaali kartaa tusaale tufaax, xabad tufaax ama 2 xaboo tufaaxa iyo protein shake. any simple carbs iyo protein ayaad isku isticmaali kartaa xilligaas oo kale. kuwaasna waa cuntooyinka fudud oo 30 daqiiqo iyo wixii ka yar ka hor inta aadan gymka tagin aad cuni kartid. okay, asxaabta, waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysateen. maxaa la cunaa gymka ka hor? waxaan filayaa inaad wax badan ka fahanteen. protein, carbohydrate, iyo waxaan kaloo soo sheegnay waqtiga la kala qaadanayo cuntooyinka. okay, sidoo kale waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka hesheen. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar videogan. sidoo kale maxaad jeclaan laheedeen muuqaalada kale inaan kasoo sameeyo? asxaabta comment sectionka igu soo qora. channelkan adinka ayaa iska leh. channelka waxaan u sameeyey, waxaan muuqaalo usoo geliyaa inaan kala faa'iidaysano. iisoo qora wax walba aad jeclaan laheedeen. sidoo kale muuqaalada xiga maxaad rabtaan inaad ku aragtaan? ila soo hadla. maxaad sugaysaan asxaabta? waa sidaa pre-workout mealkaaga hadda kadib ka taxadir. sidoo kale haddii aad u baahan tahay diet plan oo ku salaysan da'daada, culeyskaaga, dhirirkaaga, oo kaa caawin doona si dhaqsaa inaad ku gaartid hadafka aad rabtid, ila soo hadal. instagramkayga Abshir Fitness igala soo hadal. descriptionka ayaan soo dhigi doonaa linkiga. waa mahadsantihiin asxaabta. waa inoo video kale. bye bye.